وبركاته. maanta anigu waa gudoomiyaha xidigaha geeska waxaan shir sharaad ku qabanay magaalada Hargeysa. shirka jiraayid wuxuu daaran yahay ama ku saleeyahay ama aan uga goleeyahay in aan cadeeyo waxa madaarka Cigaal International Airport ka soo degay 4 xubnood oo ka tirsan kooxda Cabdiraxmaan Oday Nimcaan Hilaac Xamdi Kuyn iyo Maxamed Cirro waxa la xiray isla daqiiqadii ay diyaaradda ka soo degeen waxaan aaminsanahay in ganacsatada saxafiyiinta ururada bulshada dhaqaatiirtu ay yihiin bilaa xuduud oo meel kasta ay tagi karaan goor kasta iyo goob kasta u baahdaan fanaaniintu kuwaasay la mid yihiin waxaan qirayaa oon cadeynayaa in fanaaniinta xidigaha geesku uu fankoogu aanu xad lahayn una xuduud lahayn laakiin qadiyadoodu ay xad leedahay taasi uma baahna sharaxaad fara badan waxaan qabaa siyaasiyiinta xaaladda ku abuuraya ee xukuumaddan ku jira ee wasiirada ah ee doonaya inay xaalad ku abuuraan xaaladaha dalka ka jira cakiran inay maxay ku dambabasaan ama maxay ku jeediyaan ishuuga waxaan leeyahay dastuurka qaranka faqradiisa koowaad qodobka 23aad ee xorriyadda dhaqdhaqaaqa qofka ayaa wuxuu dhigayaa in qofku meel kasta uu tagi karo soona noqon karo qodobka 25aad ee dastuurka qaranku in aan qofna la iska xiri karin dastuurkii qaranka markaa xukuumadda mayada jabisay bisanaga jabinay bal qodobka lagu eedeeyay ee lagu soo xiray ee ay xarig iyo xabsi maanta ku muteen dadka u sheegto markaan inta ka yimaado maalin walba siyaasiyiin Soomaaliya xilal ka hayay ayaa roog cas loo dhigaa oon xitaa shacabka loo sheegin qaabkii loo keenay waxa ay u yimaadeen oo la soo dhaweeyay dhalinyarada xidigaha geesku ma aha dawladdu inay culeysiisato ma aha inay xaalad abuurto madaxweynaha qaranka Soomaaliland Axmed Maxamed Xamuud Siraayo waxaan u sheegayaa aanan u cadeynayaa in xidigaha geesku ay yihiin dad iskood iskugu tagay oo aan ahayn niman ka tirsan wasaaradda warfaafinta ma jiro qof shaqaale dawladeed haddii shaqaale dawladeed ay xidigaha geesku yihiin qodobka hay'adda shaqaalaha ee shaqaalaha dawladda ayaa qabanaya siday u madax banaan yihiin ganacsatadu siday u madax banaan yihiin dhaqaatiirtu ayay xidigaha geesku u madax banaan yihiin maalmahan waxa jiray in xaalad kolba sanadkii ugu dambeeyay in kolba xaalad la abuuro ay wasiirada qaarkood abuuraan anu wasiirada dhaqanka qaanno qaar badan oo kamid ah la yooyo taymeelana murmaayo oran maayo laakiin waxaan leeyahay afmeeshaarku golaha kuma fashilmo ee go'aan qaadashadu ku fashilma anagu fankayaga iyo madax banaanidayada cidnaba marti uga manihin jamhuuriyadda Soomaaliland shacabka lama jira hababinayna waxaan leeyahay nimankan waa nimankii qaaday ee horay gudmadu gundaha dhigato talada guracaan gunaad ka tagtay hadduu galabtaba xor yahay geeyay walla ma gabay guulow ma hada sawirro waxa facebookyada iyo warbaahinta socday photoshop waxa muhiima in aaladda casriga ah iyo tiknoolajiyada iyo siyaasaddu wada socoto oo siyaasiyiintu garan karaan waxaan waxa la yahay wala sameyn kara waxa la waxa xil Soomaaliland ka maanta caalamka soo dunida lagu wada sameyn karo caalam baad huwateen haddii xitaa caalam la huwaday macnaheedu ma aha qofku cid caalamkeeda wadu yahay waxaan cadeynayaa waan cambaaraynayaa marka koowaad falkaasi iyo qaabka loo qaaday iyo qaabka loo xiray ee anshaxay asluubta intaba ka baxsan anagu ma joogno dal aanu marti ku nahay dalkayga baanu joognaa sharciga kooxda xidigaha geeska maanta badhkood xiran loo adeegsaday waxaan doonaynaa in baalna loo cadeeyo qodobada iyo xeerarka qabanaya iyadoo cidda ay ka raali tahay xukuumaddu waa u yeedhaa cidda ay ka raali tahay way soo dhaweysaa cidda ay ka raali tahay roog casbaa loo dhigaa waa cidda qadiyadda iyo jiritaanka dalka kan ka hortimiday
xidigaha geesku kama horima xayeysiiska ganacsatada iyo xadiiska shuyuukhdu meel kasta oo ka baxaa heesun bay la mid tahay taasi hankaagu ha dhaafana lagama qaadin hees wadaniya jacayl baa laga qaaday shalay baa ugu dambeysay Axmed Naaji lagu soo dhaweynay magaalada Hargeysa xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Siiraayo anoo ixtiraam fara badan waxaan leeyahay madaxweyne haddii aad luuqad kala samaysay noo sheeg si aan uga guurno waxaana kulmiyey ee Muqdisho dadka geeyay waa af wadaag afkaanu leenahay cid kasta inaka Baydhabo joogay inaka Boorama joogay inaka Hargeysa joogay dhagihiisa ayaan anagu kula shuraakanahay